وزير عوالنا مقلة هيرد جوابتها محمد صالح سؤالها محمد صالح عطنب محمد صالح ما تسنيهي وزير عوار waxaa laga yaabaa reegal inuu miyad ku jiro weli runtii suu sheegay wasiirku maamulka SC Khaatumo runtii isaga ayaa kasbaday inuu full federal member state ka noqdo dowladda federaalka shuruudihii runtii ahayd oo ku xirnaana runtii wuu soo bixiyay dhammaantood amniguu sugay wuxuu yeeshay hab kala dambayna wuxuu samaystay maamul leh saddexdiisii gole golihii fulinta golihii baarlamaanka iyo golihii garsoorka haddana wuxuu u gudbayaa inuu ka baxo waqtigii ku-meel gaarka interimka loo yaqaanay waa sax dastuurka waxaa ku qoran 2 gobol iyo wixii ka badan waan ognahay gobollo ayaa jira aan ahayn maamulo ayaa jira ay dhahdeen 2 gobol ahayn haddana dowladda federaalka ka mid ah laakiin maamulka SC Khaatumo hadda wuu haystaa 2 gobol iyo badhba marka 2 gobol iyo badh waa Sool Sanaag iyo Cayn weeye oo dee taas ayuu hadda diyaar ugu yahay inuu maamul ahaan uu full federal member state ku helo laakiin shuruudihii laga rabay dhan wuu soo buuxiyay haddana isaga ayaa rabay inuu ku-meel gaarka ka baxo dastuurkii baa la qoraya dasaad ogtihiin dastuurkii lagu dhaqi lahaa ama lagu maamuli lahaa markuu maamul ka baxo ku-meel gaarka marka taasna waxay tusaysaa runtii sida uu ugu heelan yahay inuu ka baxo ku-meel gaarka hadhowtana uu ka mid noqdo dowladda federaalka haddaba wuu ka mid yahay si ku-meel gaara laakiin si buuxda uga noqdo laakiin aqoonsiga ugu weyn waxa weeye kan shacabka SC Khaatumo uu aaminay maamulkooda amnigooda sugay waxbarasho siiyey caafimaad fidiyey bulshadiina uu adeegayo ka ayaa annaga maamul ahaan noo muhiimsan dabcan full federal member statena dowladda federaalka way soo dhaweynaysaa taasna waxaa tusaysaa yani imaatinka uu imanayo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu imanayo magaalada laascanood oo ay tusayso Soomaaliya habkeedii federaalka inuu maalinta ka dambaysa uu sii xoogeysanayo waana loo baahan yahay runtii wasiirku waxaan leeyahay prime ministerku inuu halkan yimaado laascanood yimaado horumarka arko mashaariic keeno kuwa kale dhagax dhigo mashaariic badan waxyaabahaas oo waxa dowladda federaalku ay rabto inay ku hanato doorkeeda ah inay maamulada SC Khaatumo ay ka mid noqoto ama maamulka SC Khaatumo ay yiraahdeen ka mid noqdo dowladda federaalka aad baad u mahadsantahay wasiir Hiire